Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha meel walba aad joogtiin soo dhowaada waa walaalkii Shakuur Cabdallah iyo video cusub videoga maantay waxaan isla eegi doonaa insha Allah xaaladda suuqa maanta oo bisha lixaad soddonkeeda 2023 oo maalin jimco ah jimco wanaagsana idin leeyahay dhammaantiin waxaan ku jiraa website-ka Crypto Popple oo i tusayo suuqa dhan in uu wada cagaar yahay buufintiisana ay aad u weyn tahay qaar ka mid ah koonanka wiigan hadda lasoo dhaafay suuqa si aad ah waxa u qabsaday koonkan la yidhaahdo bitcoin cash almost wiigeedii haddartan lasoo dhaafay more than 2000% buu kacay haddaa wiig ka hor aragno aan fiirino meeshuu ka imaaday wuxuu ahaa $143 haddana wuxuu maraya maasha allah ilaa almost $311 wuxuu dhaqaajiye sababta suuqa baalkan uu dhaqaajiye iyo waxyaalaha kale oo la filayo inay dhaqaaqaan aan isla eegi doono insha allah ila socda ku dadaala maxaa la dhahaa in sheeg inaa la sheer garaysiin asxaabtiina laygana taabatiin let's go guys bal hordhac waxaan sameynaynaa videogaana dhegeysanaynaa why BTC why Bitcoin Cash dhaqan uu sameeyey Headline over the past 24 hours about an exchange that is backed by Schwab and Fidelity called EDX that is going live, and they added more backers. Schwab and Fidelity, of course, huge titans in the traditional finance space, kind of the retail brokerage houses. A little bit more about that. Schwab, Fidelity, Citadel are all investors in this exchange. They're only launching on Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, and Litecoin. I think it's kind of funny. There was a video that went a little bit viral where Gary Gensler spoke a few years ago, I believe at MIT, I'm not sure where, but saying like that 70% of crypto is not securities, and he singled out Bitcoin ETH, Bitcoin Cash, and Litecoin. So perhaps they saw that video, and that was how they chose which coins to launch. The funds will be held at custodians, and I think the goal, as opposed to on the exchange itself, and I think the goal is to avoid an FTX situation where you have misappropriation of funds, where kind of the broker dealer also has the custody, something like that. There are a lot of moving pieces. Okay, sidaad videoga aan isla fiirsanay aad ku aragtiin institutionkii baa waxay u soo gelayaan suuqani si aan caadi ahayn maraykanku waxaad u malaysaa in ay dheelayaan game aad derti ah kambaniyada waaweyn sida Binance ay rabaan suuqa inay ka saaraan kambaniyadoodii iyo brokeradoodii weynaa oo la yaqiinay oo stock marketka caanka ku ahaa waxa waaye haddartan waxay soo galayaan cryptocurrency marka haddartan waxaa la sameeyey exchange la yiraahdo magaciisa EDX oo maxaa la dhahaa support ka heyso brokerada caanka ka ah maraykanka oo aadka u waaweyn dhowr week ka horna waxaan arkayna BlackRock ayadana inay BlackRock raalli ahaada BlackRock ayadana ay maxaa la dhahaa ETF spot ETF ay sameynayso oo Bitcoin ah marka exchange-gani EDX la yiraahdo oo support weyn ka heyso sidaan ii sheegay brokerada caanka ka ah maraykanka Fidelity waxaa ka mid ah midkan Fidelity waa broker stock marketka caanka ka ah Schwab asaga xataa waa broker wuxuu caan ka yahay maraykanka marka exchange-gan wuxuu trade ku sameynaya oo u fasaxay kalantigiisa Bitcoin, Ethereum, Litecoin iyo Bitcoin Cash maxaa sababay in uu intaan focus gareeyo because sida Coinbase loogu dhegay oo lala dhahay koonyada aad idinka maxaa la dhahaa madashiina lagu trade gareeyo security waaye marka SSC-da kuma dhegno Bitcoin SSC-da weli Ethereum kama hadlin
marka SSC weli Litecoin kama hadlin. Bitcoin Cash waa fork ka mid ah waa forkii hore ee maxaa la dhahaa ii sheeg Bitcoin BTC ama Bitcoin. Marka Bitcoin Cash kani wuxuu la mid yahay oona security ahayn Bitcoin-kan caadiga ah aan naqaano. Marka kan waagii suuqa uu fiicnaa oo bull marketka lagu jiray almost 1000 1300 4000 meelahaasuu marayay. Haddana maantay waxaa lagu trade garaynaya 2 week ka hor $140. Haddana bam saasuu u qarxay markii ay exchange-gan uu bilaabay in uu soo fasaxo ama list gareeyo afartan coin oo waaweyn. Sidaa chartiga ku aragtiin waa Bitcoin Cash meeshuu ka imaaday ka warrama waa June 20-keeda markii June 20-keeda hadda waa 10 beri ka hor markii ay soo baxday exchange-gan cusub markuu soo baxay Bitcoin Cash wuxuu marayay $97. Marka ilaa haddeertaana wuxuu sameeyey almost 200% uu sameeyey. Aniga waxaa isheeda kusoo dhacday Ethereum Classic wuxuu sameynaya dhaqaaqii sida Bitcoin Cash camal level waa candle aan caadi ahayn oo daily ah aad aragtiin. Marka hadduu jabsado meeshan waxaan u malaynayaa asagana inuu ku noqonayo meeshii waagii hore oo trade-ka lagu ahaan jiray. Marka mana hubi in uu exchange-gani cusub la yiraahdo EDX. Exchange-gan waa EDX. Marka EDX haddeertan afartan uu soo bandhigay ma aqaan laakiin in ay ku dareen Ethereum Classic inay ku dareen oo laakiin waxaan u malaynayaa mar walba narrative baa jirto oo narrative-kaas baa suuqa mar walba dhaqaajiya oo kaxeeya. Marka isha lagu hayo Ethereum Cash ma ahe Ethereum Classic aan ka wada raali ahaada. Ethereum Classic isha lagu hayo dhaqaaqan caadi ahayn uu sameynaya. Waxaa u malaynayaa kolley candle-kan oo daily-ga ah waxaan u malaynayaa inuu candle kale ku xigi doono oo maxaa la dhahaa meeshaas ka dhaqaaqa laakiin mar walba hal iska ilaaliyo because si aan caadi ahayn xad dhaaf ahayn uu dhaqaaqay maantay. ilaa hadda waxaa maraya almost 16% uu dhaqaaq sameeyey. maxaa kale aan rabaa inaan idinla wadaago arrimaha kale ay xiisaha badnaa wiigani waxaa ka mid ah Arbacadii waxaa dhacday madal la yiraahdo ECB Forum oo kulmisay madaxda bangiyada afarta ugu waaweyn inkastoo Chinaha uu ka maqnaa meesha ay bidixeeyeen. Marka meesha waxaa imaaday oo su'aalo iyo jawaab bixinayay maxaa la dhahaa madaxa bangiga Japan, madaxa bangiga Mareykanka, madaxweynaha bangiga Yurub iyo madaxweynaha bangiga maxaa la dhahaa UK. Marka inkastoo shactirada ee meesha ay badneed oo odaygani bangiga madaxa u ah Japan uu ku raaxaysanayay maxaa la dhahaa bandhigani sababta wuu ka duwan yahay oo saddexdooda waxay la dagaalayaan sicir bararka waddanka Japanna sicir bararkay rabaanba inay abuuraan oo wuxuuba taagan yahay idinku hadda digital moneygaas aad rabtiin inaad samaysiin anakana lacag baan rabnaa haddeertaan inaan taabacno oo warqad ah sidaan kalsoonida lacagteena Japaaniiska ay kalsooni weyn dadka inay maxaa la dhahaa u muujiyaan. Marka lacag badan ay haddeertaan taabacina uu yiraahday sidii ay u dhaliyaan halaho 2% inflation meeshaasaa average-ka ah ma aqaan wadamada dhan way isku daysadaan
2% averagekaas inuu ka hooseeyana ma la rabo, inuu ka koreeyana ma la rabo. Marka Japan way ka hooseysaa 2% averageka, ma aqaanin nambarka saxda ah, laakiin hadalladiisa waxaa ka mid ahaa in ay rabaan inay abuuraan inflationka. Midka Maraykanka waxaa la dhahay ma rabtid inaad dhahdid waan istaajinay, ma rabtid inaad dhahdid waan ka boodnay, maxaa la dhahay ii sheeg aad ku tilmaamaysaa go-aankii ugu dambeeya oo interest rateka loogu darayay. Sababta ah labadii sano haddataan lasoo dhaafay si xad aan caadi ahayn ilaa 10 jeer wuxuu ku daray interest rateka, waxay maraysaa haddataan 5.25 saan filayo. Marka su-aalahaasaa la weydiiyey, inkastoo uu ka leexleexday, weli wuxuu taagan yahay 2%geeni baa noo muuqdaa. Waxaa la weydiiyey suuqa stock marketka ka waranaa la dhahay. Suuqa waxa waaye dhaqaaq fiican uu sameynaya, idinkana sicir barar baa la dagaalameysiin. Marka wuxuu yiraahday shaqadaynu ma aha suuqan dhaqaaqiisa ama inuu dhaqaaqo ama inuu aan dhaqaaqin. Annaka shaqadayna keliya waxa waaye in aan sicir bararka la dagaalno, focuskeena ma saarno stock marketka. Marka stock marketka inaan ceejino, focuskeena ma saarno. Marka taasna hadalladaasi maalintaasi waxay keentay in uu suuqa uu si fiican u dhaqaaqo maalintaasi maalinta ku xigtaba. Marka midkan Ingiriiska ugu daran oo xaalkooda aadka u adag yahay, Yurubiyaanka waxaad u malaysaa in ay maxaa la dhahaa yacni gamekooda dhanka la dagaalanka inflationka sicir bararka uu wanaagsan yahay. Laakiin midkani wasiirkan cusub maxaa la dhahaa madaxa bangiga Ingiriiska aad u malaysaa inay u baahan yahay shaqo aad u badan. Meeshii Maraykanka 2 sano ay ku jireen inay la dagaalamaan inflationka iyo sicir bararka, kuwa Ingiriiska way ka dhacsanaayeen. Marka waxyaalahaasaa badnaa. Waxaad u malaysaa in ay kalsooni ku qabaan dhaqaalaha. Waxaad u malaysaa in ay rajadooda ay fiican tahay, ay yacni recessionka la sheegayay aan meesha oolin. Marka taasna waxay keenaysaa in suuqa lagu kalsoonaado, suuqa lacag la soo geliyo markay raggaani iyo dumarkaani madaxda ah ee bangiyada jooga markay ka hadlaan xaaladda dhaqaalaha. Marka waxay gelinaysaa dadka investorka ah ee kalsooni ay gelinaysaa in ay maxaa la dhahaa ay maalgashi bilaabaan. Marka taasaa ayaantan labadan beri aan arkaya jeclaaday inaan idinla wadaago. Isha waxaa ku haysiin Ethereum Classic. Ethereum Classic waxaan u maleynayaa in uu daba raaci doono Bitcoin Cash. Bitcoin Cash 200% buu sameeyey wiigii haddartaan lasoo dhaafay. Ethereumna hadda u bilaabatay maantii waa 13%. Marka isha lagu hayo insha Allah mar walba uu test maxaa la dhahaa correction sameeyo, hal cabirto insha Allah risk managementkana sameeya, kuna dadaala insha Allah. Videoga xiga waxaan ii rajeynayaa read wacan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.